السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا أدي أدو ما هضغيا اللي بنضا يشر قدون هذا لبضا قوله يعني كم ارتقادني قدادا نجا شيبي كسوق قيب قري أدي أدبانو ما هنغنا وأنا مسؤول وين وأنت maalinka horeysa inaynu qabanay ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kalaba laakiin si la sheegay hawlaha waa iska badan yihiin haday daahdayna maanta waa joognaa maanta arinteenu waa qada sharaf hadal kale oo dheer ma aha waa hal fariin oo kaliya oo ah golayaasha qaranka ugu sareeya xeerdejinta oo laba aqala oo labada shir gudoomiye joogan maxkamadii oo jooga gudoomiye maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga haddii ilaahay idmo inaynu noqono xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda markay doodana halka codka u bato isku raaca qaabka uu shaqeynayana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan hadduu qof la hadlaayo oo doodayaan adoo doodaya ha ku xadgudbin qofka kale haddii qayb ama aqal kale la hadlaayana adoo doodaada iyo halka ay danta ku jirto tilmaamaya kula muuqato ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeedi haddii taasi processkaasi naga qaldamo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqaladooda shaqeynaya aanay u shaqeynin dee shaydaan baa ka dhex duulaya ilaa dad si xun wada hadlay heshiin maayeen golaha wakiilada cusub ixtiraam baanu u haynaa ku xadgudbi mayno waa la shaqeynaynaa isku mid baynu nahay siyaasaddaasinu ku shaqeynaa haddii la yidhaahdo aad iyo aad waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu